السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومعلن عبد الرزاق وأد كجبرتين عشرة تيوريجا أما حرارك وديد بابورتا iyo calaamadahooda ama sida loo yaqaano boorarka insha Allah taala waxaan ka xumahay inuu kanaalkeena hore naga xirmay ama la xirayba uuna xiran yahay muddo 3 toddobaad ka badan soo waxaa cabasho iyo baahiyo badan igaga imaaday ardayda oo aniga sida khaaska ah oo Skype-ka aan oga bara casharada theory-ga oo casharada kasoo diyaarin jiray kasoo baran jiray kanaalkeena hore ee YouTube-ka iyo sidoo kale mid la mid ah ardayda sida YouTube ahaanka ugu taxan kanaalkii hore una xirmay oo cabasho badan reaction badan aan ka helay waxa marka sabab ama qasab noqotay mise lama horaan noqotay aan u arkay inaan kanaal kale furo kanaalka cusubna wuxuu naqan doonaa ma yahayba theory Somali wuxuu yahay theory Somali halka kii hore uu ahaa af Somali waxaan ka gooya kaliya afka insha Allah taala marka waxaad ogaanaysaan kanaalkeena cusub inuu yahay theory Somali oo aan ugu talagalay walaalaha Soomaaliyeed degan ku dhaqan wadanka Netherland ama Holland iyo Belgium maadaama luqadda Netherland ay ku hadlaan ayna fahansan yihiin oo haddana xeerarka wadada baabuurta uu iska adag yahay in ay ka faa'iidaan marka waxaan isku dayayaa maanta insha Allah in aan casharada boorarka oo aan hore u duubay oo aan kala gogoyay inaan maanta aan hal video ka dhigo kanaan duubay insha Allah kadibna casharada caadiga ahaa inaan sida toos aan u soo geliyo hadduu Ilaahay idmo waxaan filayaa aan rajaynayaa in laga faa'iido doono hadduu Ilaahay insha Allah marka waxaan u gudgalaynaa casharadeena sida hore waxaad igaga barateen anigoo casharada ka shaqeynayo oo mid saxan aan dooranayo oo aad arki kartaan oo ay ku sheegayso calaamad cagaaran laakiin hadda qaabkii hore uu ka doonaanaya wuxuu ahaan doonaa ama yahayba qoraal af Soomaali iyo af Nederland isku jira hadduu Ilaahay marka waxaan ku bilaabeynaa qaybta hore insha Allah waxaa la yiri Verkeersborden waa boorarka mise calaamadaha wadada met betrekking tot snelheidsregels oo khuseeya qanuunka orodka mise xawaaraha calaamadaha jidka ee ku saabsan xeerarka xawaaraha ayaa la leeyahay halkan waxaan dhahaynaa insha Allah boorka inoogu horeeyo maximum snelheid waa xawaaraha ugu badan la ogol yahay inaad ku wado waa boorkan konton ayaa ku qoran midda ugu badan lagu ogolayna ku wado waay sababtoo ah waxa lagu xindaaway mise lagu wareejiyay gaduud waxay ka dhigantaa inta badan kuma wadi kartid verboden waxa mamnuuca hard traden inaad ku wado in ka badan dan aan khafiif snelheid inta lagu siiyay in ka badan inaad ku wado laguma ogola in dit geval xaaladani niet harder dan 50 kilometer ina xaaladan aan ku wadin in ka badan 50 kilometer lama ogola waxaan ku darayaa calaamada wareega ah waxay tahay macnaheeda lama ogola in ka wado marka waxa soo galayso cadadka ku qoran calaamada wareega gudaheeda waa 50 hadii la raaco 30 lagu qoraa 60 40 80 70 190 130 120 110 marka mar walba magaca wuxuu ahaan doonaa maximum snelheid waa xawaaraha ugu badan la ogol yahay waxa la bedel kaliya lambarka ku qoran marka waxaan leenahay xawaaraha ugu badan oo ah 50 kilometer wax ka badan kuma socon kartid midka kale xiga waa mid wareega waxa waa wareeg hadana 3 slaab 3 riigo ayaa lagu saaray 3 strip ayaa lagu saaray waxay ka dhigan tahay kii hore gaduudka ahaa uu ka dhamaaday hadirtaan kii hore lagu khasbay uu ka dhamaaday in ka badan ayaa lagu ogolaan karaa ayna maximum snelheid waa dhamaadka xawaaraha ugu badan lagu ogolaa hadduu marna ka dhamaado xawaara 50 ah iyo xawaara 60 ah iyo xawaara 70 ah waxa si automatically ah lagu ogol yahay inaad ku wadi kartid 80 hadana boor kale lagu siin
waxaa dhammaaday xawaarihii ugu badan. waxaa jirta habeeyada boor loo yaqaano electronic signalling board, boor ku shaqeeya koronto oo kana daarkantood koronto. waxaa kaloo loo yaqaanaa matrix board, boorka asna korontada weeyaan. boorka korontada asigana waxay ka dhigan tahay inuu yahay xawaaraha ugu badan lagu ogolyahay. matalan waxaa ku socotaa snailway mise highway ku socotaa. highwayga sida normaalka ee boorka gadaca ah ama boorka looxa waxaa la ogol yahay in uu 130 ku socoto ayaa kugu qoran, laakiin boorka korontada wuxuu ku siinayaa 70 matalan. marka waxay ka dhigan tahay boorka gasaca ah lama raacayo, kan korontada ayaa ka awood badan. kan korontada ayaa ka awood badan inaad raacda laga rabaa. marka asiga waa maximum signal light, waa xawaaraha ugu badan. hadduu ka dhamaadana boor kaleete ayaa jiro aan arki doono insha Allah tacaala. waxaan leenahay marka boorka ugu badan wuxuu noqonayaa in uu yahay maximum signal height of an electronic signal board, waa xawaaraha ugu badan la ogol yahay insha Allah tacaala. maxaa ku yiraahdaa marka boorka korontada waa boorka xawaaraha korontada ku qoro waa boor maximum insha Allah tacaala. waxaana dhahaynaa xawaaraha ugu badan weeyaan. waxaa soo haray waxa loo yaqaano advice signal height. advice signal height waxaa loo yaqaanaa xawaaraha oo talada ah weeyaan. waa lagula taliyay ina halkan aad ku marto 50 lagula taliyay, laakiin da ka badan ku wado cid ku haysata ma lahan. airword aan khiraarin waxaa lagula talinayaa need harder terrain inaan ku badan in ka badan danda aan khiifsnay lahayd inta lagu siiyay in ka badan oo hada xaaladan ah 50 kilometer. yani kii hore guduudka ahaa wuxuu kaga duwan yahay kan blue waaye. hadaa rabto 60 kuwad ya 50 kuwad laguma diidano, laakiin waxaa lagula taliyay ina kuwada 50 un, maadaama meesha ay tahay meel bokti ah ama golad ah aad galayso oo ay noqonayso in aad steeriga ama gaariga aad maamuli kari weyso. waxaa lagula talinayaa inaad intan ka badan aadan ku wadin. hadduu ka dhamaadayna calaamad gaduudan ayaa lagu saaray, strip gaduudan oo lagu leeyahay waa dhamaadka advice signal light xawaaraha talada. waxaan leenahay midka xiga waxaa loo yaqaanaa het begin van 30 kilometer zone, waa bilowga aaga 30 kilometer loogu talagalay. bina dit khibid aagani mise eridani maqnid harder wada khariirin in ka badan laguma socon karo danda aan khiifan inta lagu siiyay in ka badan. in dit khifal nid harder than 30 kilometer xaaladani 30 in ka badan laguma ogolo. waxaa bilaabanaysa baxaarihii 30 kilometer lagu soconayay ama aaga 30 lagu soconayay kuma socon kartid in ka badan 30 kilometer. waa aragtaa waa gaduud asna gaduud wareegan weeyaan. hadduu ka dhamaadayna gaduudkii waa la baabi'iyay, waxaa la saaray 3 strip ayaa lagu saaray madow ah. het einde van 30 kilometer zone waa dhamaadka aaga 30 loogu talagalay. waxaan galaynaa qaybta labaad oo loo yaqaano verkeersborden met betrekking tot voorrangingsregels. waa boorarka wadada oo khuseeya ama ku saabsanba mudnaanta, xeerarka mudnaanta. mudnaanta waxaa la yidhi boorka jaalaha simbuuska waxaa loo yaqaanaa voorrangingsweg, wadada mudnaanta. wadada mudnaanta right of in voorrangingsweg waxaad ku wadaa jidka mise wadada mudnaanta. ciddi midig iyo bidix kaaga imaanayso waad ka leedahay weeyaan, ilaa uu kaaga imaado middan 3 strip lagu saaray oo kula hayso ayna voorrangingsweg, waa dhamaadka wadada mudnaanta kula hayso. yani isgoos walba wado walbo dhinacyaha midigta bidix kaaga imaaday cidii kaaga imaado waad ka leedahay ilaa uu kaaga imaado midka dhamaadka. marka maadaama ay sidaa tahay waxaan leenahay waa wado toosan oo ilaa uu boorka aynka ya kaaga yimaado aad adiga leedahay dhanka midig bidix. midka xiga waxaa loo yaqaanaa voorrangskruising amaba voorrangskruispunt, isgooska mudnaanta asigana oo ah waa hal isgoos kaliya, hal isgoys kaliya.
wada dhinaca bidix midig iyo bidix kaaga imaanaysa cidii kaaga imaada baabuur ah amaba darawal ah baaskiil wada baabuur wada mooto wada faras wada waad ka leedahay weeyaan yacni kan oo diyaaradda kala samaysan wuxuu ka hadlayaa hal isgoos keliya isgooska xiga xeer kale ku qaban kara Je hebt voorrang op het verkeer dat van links en rechts komt. Waxaad ka leedahay mudnaanta darawalinta kaaga imaanaya oo bestuurdeska ah ee dhanka midig ka imaanaysa ayaad ka leedahay midka xiga waa mid lamid ah voorrang kruispunt isgooska mudnaanta laakiin tookadan waa links cidii midix kaaga imaada waad ka leedahay isgooska mudnaanta bidix weeyaan kan xiga voorrang kruispunt isgooska mudnaanta dhanka midig je hebt voorrang waxaad ka leedahay mudnaanta op het verkeer dat van rechts komt cidii kaaga imaada dhanka midig waad ka leedahay waxa ku soo haray marka cidii aad ka lahayd maxaa loo dhigay marka waxaa loo dhigay boor loo yaqaano highland amaba stopboard highlandiga verleen voorrang sii mudnaanta weeyaan als je dit bord tegenkomt haddaad boorkan aragto moet je voorrang verlenen aan al het andere verkeer van links en rechts waa inaad siidaa darawalinta kaaga imaanayo dhanka bidix iyo dhanka midig haddaad boorkan haysato loo yaqaano highlandiga highlandiga wuxuu uu uga duwan yahay stopboardka adigoo iska sii fiirinaya midigta iyo bidixda oo aan macnaha dadna aan la kulmin waa sii socon kartaa laakiin haddii dad aad la kulanto marka istaag weeyaan cid goynaysa wadada hadaad aragto waa inaa marka istaagtaa marka middaa ayuu uga duwan yahay stopboardka stopboardkas waxa waye marka warkiisa inaad horta ugu horeyn adoona fiirinin ama eeginba inaad istaagto kadib aad fiirido midig iyo bidix aad dhaqaajido als je dit bord tegenkomt haddii aad boorkan aragto moet je voorrang te verlenen aan al het verkeer van links en rechts komt waana mid kale aan ku darayaa waxa kaa leh keliya darawaliin dad logeynayo loo yaqaano voetgangers ama soconayo kama laha insha allah waa joogso baabuur kasta oo midig ama bidix kaaga imaanaysa kaale okay waxaa tagaynaa marka insha allah qaybtii saddexaad verkeersborden met betrekking tot gesloten verklaring waa xeerarka amaba boorarka ama calaamadaha wadada oo ku saabsan cadeymaha xiran boorkan wuxuu leeyahay inoogu horeeyaa geslota in beide richting يعني wadada waxay ka xiran tahay labada jiho voertuigen baabuurta gaadiidka uu ka xiran yahay haddaan dhahno beide labadu waay richtingna waa jihooyinka labada jiho waxaa labada jiho laga wadaa haddaad boorkan aragto oo adigu ka hor imaado dhankan taagan tahay oo kale halkan baad taagan tahay halkan kama geli kartid hadday cid kale dhanka kale ka imaanaysana kama soo geli karto labada dhinacba way ka xiran tahay weeyaan voertuigen baabuurta mogen deze weg in geen van beide richtingen inrijden baabuurta amaba gaadiidka labada dhinac kama geli karaan wadada midka xiga waa gesloten in deze richting voor voertuigen waxay ka xiran tahay wadada halkan jiho kaliya because wadadan waa wada loo yaqaano wadada halkan dhinac u socoto oo loo yaqaano in richtingsweg يعني haddaad inta taagan tahay oo aad boorkan ka hor imaado ma geli kartid haddii laakiin dhanka kale baabuur kale ka imaado wuxuu awood u leeyahay inuu galo waayo asiga boorkan baa u yaala oo ah in richtingsweg oo buluuga ah afar geeska waa wadda hal jiha u socota insha allah waxaa leeyahay boorka xiga in richtingsweg waa wadda halka jiha u socoto voertuigen baabuurta mogen deze weg alleen in deze richting inrijden baabuurta mise gaadiidka inay halkan jiha u wada unbaa loo ogol yahay omkeren inay soo laabtaan of akhtar out inay gadaal u socdaan is verboden mamnuuc jidkan ama wadadan inay toos u socoto unbaa loo ogol yahay aadan soo kala fiirinin gadaal aan u wadin baabuura ka hor imaanayana ma jiro waayo wadada waxaa lagu yidhi richtingsweg wadada halka dhinac u socoto adiga dad doonta dhinaca bidix dhinaca midig
ama iyo dhinaca bidix ama dhinaca midig baad u laaban kartaa lagama hor imaan karo gaagaal ma udi kartid mana kala firin kartid haddii aa hoos boorka lagugu qoro loo yaqaano underboard oo lagu dhaho boorka maxaa ku yidhahda ay sheegay baskiil mise baabuur meesha loo talagalay way ka hor imaan karaan haddii lagu dhaho waa diyaar baskiilada iyo baabuurta mise motooyinka qaar way ka hor imaan karaan haddii lagu dhaho ha waa la ogolyahay yani boorka hoose ayaa kuu sheegay boorka xiga waxaa la yidhahdana waa inrectance wadada halka jiha u socota u mooyaan waa midda kore ayay la mid tahay laakiin markan dhinaca lagu dhigay waxa ay taalaa wadda dhex oo kale laakiin marmarka qaarna ama waxay tahayba in aad qasab ku tahay inaad raacdo dhankay kuu jeesa inaad u raacdo weeyaan midka xiga in ride to khistaan inaad halkan ku wado waa la ogolyahay in laga hor imaado waa la ogolyahay waayo laba falaris ka hor imaanaysa weeyaan waa buluug inaad laga hor imaado adina aad ku wado waa la ogolyahay weeyaan in ride inaad ku wado to khistaan dhanka doonto waa lagu ogolyahay midka xiga waxaa la yidhi khislowtan for motor voertuigen wuxuu ka xiran yahay baabuurta ku shaqeysa matoorka oo ka badan laba lug wixii leh yacni baabuurta laba lug ka badan leh ma geli karto sida baabuurta yarka autoska basaska faraqta autoska iyo wixii la mid ah halkan mootada waaweyn way geli kartaa oo leh labada lug laakiin wixii saddex lug lahaado waxayba ka badan yihiin laba lug soo ma malaha marka insha allah midka xiga wuxuu ka xiran yahay khislowtan for faraqta autos baabuurta waaweyn ama loorida loo yaqaan wadadan baabuurta waaweyn ma geli karaan bas wuu geli kariyaa baabuur wuu geli kariyaa mooto way geli kartaa gaduudka wareen calaamadan wareega gaduudka waxay ka dhigan tahay lama ogola lama geli karo midka xiga khislowtan for motor voertuigen wuxuu ka xiran yahay halkan baabuurta ku shaqeysa motoorka die niet sneller kuwaasoo inka badan mogen aan loo ogoleyn of kunan aan awoodin dan 25 kilometer 25 orodkooda inka badan cidaan loo ogoleyn ama aan awoodinba ma geli karaan halkan tractorka waxaa loo yaqaan waxay tahay cagacagaftu marka cagacagaftu kaligeeda maaha laakiin wixii ida la mid ah oo aanan awoodin 25 ka badan aan la ogoleyn 25 ka badan ma geli karaan waa marka tractorka kaliya ama cagacagafta kaliya inaad ku soo koobto maaha su-aashaad inay ahaato waaye waxay ka xiran tahay ciddaan awoodin ama jawaabtaad inay ahaato ciddaan awoodin in ka badan 25 kilometer lama ogolo ama la ogoleynba jawaabtaas inay ahaato laga rabaa midka xiga khislowtan wuxuu ka xiran yahay halkani for motor voertuigen baabuurta ku shaqeysa matoorka die niet sneller aana awoodin in ka badan 25 kilometer ya lama ogola kow taa waxaa ka hadlaysay waa cagacagafta kaliya ayaa ka hadlaysay hadda laakiin waxaa lagugu daray mooto dhexe iyo baaskiil mootada dhexe waxay ku socotaa iyada 45 waa jamc ahaan lagugu daray ciddaan awoodin 25 ka badan iyo ciddaan awoodin 45 ka badan ma geli karaan waa sida ah waa traktoran cagacagafta fitsanka baaskiilka iyo broomfitserska waxaa loo yaqaanaa mooto dhexe oo ku socota 45 waxaa la mid ah gaari loo yaqaano waa bromobile asna waa gaari yar oo asna aan loo ogoleyn inuu ku socdo in ka badan 45 kada sorry mootada loo yaqaano waa broomfits waa mooto aan ka badan ku socon karin 45 baabuur loo yaqaano waa bromobile asna wuxuu la mid yahay mootadan oo kaliya 45 ka badan kuma socon karo marka baabuurka waxaa ka hadlaayo amaba ka turjumaya ama u taaganba mootada loo yaqaano broomfits insha allah ma geli karaan insha allah marka waxaan leenahay gaadiidka aan awoodin 25 iyo gaadiidka aan awoodin 45 halkan ma geli karaan midka xiga waxaa la yidhi khislowtan wuxuu ka xiran yahay for motor voertuigen baabuurta ku shaqeysa matoorka met aanhanger oo waxa isjiidaya oo loo yaqaano aanhang waaqanka halkan ma geli karaan
haddii aa gaari yar wadato waa geli kartaa oo aanan jidinin aan hanwaaqan kara halkaana waxaa la yidhi qislowtan for motor fitson waxay ka xiran tahay mootooyinka waaweyn ayaa loo yaqaanaa motor fitson laakiin baabuurta caadiga yaryar way geli karaan baabuurta yar caadi wuu geli karaa laakiin mootada waaweyn ma geli karta halkan halka kale waxaa laleeyahay qislowtan for alla motor furta mootada weyn iyo baabuurta yaryarba waa la isku daray markaan waxay ka xiran tahay marka wax walba ku shaqeeya motor halkan ma geli karaan waay autos bus frakt autos motor fitson iyo wixii lamidaba halkan ma geli karaan qislowta for alla motor furta wuxuu ka xiran yahay wax walba ku shaqeeya motor sida baabuurta yar mootada yar macnaa mootada weyn wax walba waxaa soo galaya marka baska frakt autoga mootada wixii lamid insha allah waxaa ku xiga insha allah tacaala qislowta for broom fitsers halkan waxay ka xiran tahay mootada loo yaqaano waa broom fitska way ka xiran tahay iyo wixii ku shaqeynayo handcapka ku shaqeynayo motorkaba wuu ka xiran yahay midka xiga qislowtan for fitsers halkan waxay ka xiran tahay baskiiladu ayay ka xiran tahay wadada yani baskiilada halkan ma geli karaan iyo bahalada ku shaqeysa handicapka ay wataan mise bahalka loo yaqaano handicapta fuurtayqan oo aanan lahayn motorka insha allah midka xiga waxaa la yidhi haddana waxaa la isku daray mootadii iyo baskiilkii qislowtan for broom fits and fitsers halkan waxay ka xiran tahay mootada loo yaqaano broom fitska iyo baskiiladuba broom fitska mootada dhexe waay iska ilaaliya way ka xiran tahay halkana waxaa la yidhi qislowtan for foot gangers waxay ka xiran tahay dadka soconaya socotada mise lugeynaya ayay ka xiran tahay weeyaan ma geli karaan wadadan waxaa ku xiga qislowta for furta aqayn halkan waxay ka xiran tahay gaadiidka baabuurta they need longer sign oo aanan ka dheereen dhirirkan laga hadlayo balac ahaan maahan waxaa laga hadlaya dhirir waxa markuu yaalo dhulka gaariga markuu dhulka yaalo ama jiif dhirir oo jiif ahaan waay gaariga markaad cabirto aad meesha uu fadhiya qofka gaarigooda ilaa iyo gadaal cabirkaas inuu uu ka dheeraado 10 mitir hadduu gaarigaada halaas ka dheeraado iyo waxaad jiidaysidba haddaan halkaas ku gadin waay 10 mitir haddii aad ka dheeraato oo dhirir ahaan markaan ka hadlayna waa dhirirka balaca oo aan dhahay dhirirka jiifka ah qislowtan for voertuigen die niet langer zijn dan 8 lengte yani baabuurta mise gaadiidka oo 10 mitir in ka badan ka dheer looma ogola inay galaan waayo wadadani marka haddii aad rabto balac ahaan waatan labada falaar yar oo labada dhinac lagu dhigay ayaa ka hadlaysa balac waxaa la yidhi wixii 2 mitir iyo 3 ka ballaaran ma geli karaan halkan waxay inoo ahayd lente ayay inoo ahayd mise langarna waa loo isticmaalaa inoo ahayd laakiin halkan waxaa la yidhi waa breder balac ahaan qislowtan for voertuigen die breder zijn dan de aangegeven breedte yacni baabuurta mise gaadiidka oo ka ballaaran inta lagu sheegay ka badan wadadan ma geli karaan gaadiid 2 mitir iyo 3 ka ballaaran ma geli karo ma geli karaan voertuigen die niet die breder zijn in dit geval 2,3 meter mogen deze weg niet in yani alaabad wadaa oo kaleete adigii gaarigaada halahan aad ka baarantihiin ma geli kartiin ama gaarigaada keliyaaba balaciis intaa uu ka badan yahay ma geli karo okay waxaa la yidhi kan xiga waa dhirirka jooga ah marka qislowtan wuxuu ka xiran yahay for voertuigen baabuurta die hoger zijn oo ka joog dheer dan de aangegeven hoogte dhirirka inta lagu siiyo ah 3 mitir ka badan 3 mitir hal ka badan haddii aad ka joog dheer tahay ma geli kartid haddii adiga taa aadan ka joog dheereen oo gaarigaada uusan ka joog dheereen oo laakiin alaabad dusha kore ku qaaday iyada oo ka dhigan inay jooggaadu noqoto intaa ka badan ma geli kartid waay waxaa la dhigaa boorarka noocaan oo kaleete meelaha loo yaqaano waa buundooyinka kaleete ee la dhigaa midka xiga waxaa loo yaqaanaa qislowta for voertuigen wuxuu ka xiran yahay baabuurta waarbij de as laste hoger ligt dan het aangegeven gewicht
يعني wuxuu ka xiran yahay baabuurta oo ka culus as last birta hoose oo xamuulka qaadi lahayd ayaa loo yaqaana oo ku xiran lugaha ayaa loo yaqaana as last oo ka joog dheer xaaladani miisaanka oo lagu sheegay 4 oo ah 8 mitir yani waa gaari weyn oo lowri ah inta la gaarin tangiga ama maxaa ku yiraahdaa ii sheegay waa containerka intaan ku rakibin gaarigii oo aadan alaabna aadan saarin ya lugihii birta lagu haysay loo yaqaan aslastiga oo awoodda qaadi lahayd ama awoodda ku hayn lahayd hadday ka cuslaadaan 4.8 ma geli karo intaan la gaarin wixii kale waxaa loo yaqaan taano waa aslast falaarta waxay ku muujinaysaa inay tahay birta midka xiga khislowten voertuigen wuxuu ka xiran yahay baabuurta die zwaarder zijn oo ka culus het aangegeven gewicht yani kan waxaa loo yaqaanaa waa jamc ahaan baabuur weyn haduu yahay oo asiga macal birtiisa hoose macal containerkiisa macal alaabta uu qaadayo hadday ka cuslaadaan 5.4 ma geli karaan waa saaman ayaa loo yaqaanaa asiga haduu leeyahay midka xiga waxaa loo yaqaanaa khislowten wuxuu ka xiran yahay voertuigen baabuurta met bepaald kuwaas waxyaabaha qaar gevaarlijk oo halista ah stoffen shayaasha qaar oo halista ah wata yani wax sun ah halis ah hawada wax u dhimaayo ayaa wadaa wadadan ma geli kartid wada kala jirta oo lagu fasaxi doono insha Allah waa falaar jaala ah waxaan galinaa qaybtii afaraad waa verkeersborden met betrekking tot rijrichting waa boorarka wadada oo ku saabsan rijrichting jihada ay ku wada boorka umbad raaci calaamadaha jidka ay ku saabsan jidka dhinaca u socda kaliya macnaha dhinaca ku jeediyo jiho dhinaca kaliya jihadu ku jeediyo umbad aadi kartaa hadda boorkan waa rotondo misaran about mise dabaarad dhankay ku falaarta ku jeedis umbad raaci kartaa rotondo waa dabaarad mise rotondo verplicht waa khasab rijrichting jihada ku jeediso inaad qaadato of the rotondada moet je in de aangegeven rijrichting rijden jihada lagu jeedin in baad ku socda in baa lagu ogolaya waxaan leenahay midka xiga waa asna boor wareega boorarka wareega ah asna falaaraha ku sawiran waa khasab dhanka ku jeedin raacdo boorkii hore afargeeska ahaa waxaa qasab ah inaan usoo kala fareenin aadan gagaar oodin waxaa kaleeto lagu sheegay in aan laga xurmaaneyn oo laakiin dhinaca midig iyo dhinaca bidix aad u laaban karto laakiin kuwa wareega ah dhinaca ayaga ku jeedin umbaa raaci karta dhinaca kale ma aadi kartid midka wareega waxaa la yidhi verplicht rijrichting dhankay ku jeedisay in raacdo umbaa la raacay je moet het bord aan de aangegeven zijde hier dus rechts te passeren boorka dhinacan kuu tilmaamo un inaad ka qaadata lagaa rabo aad ka raacdo dhan kale ha isku aadin kan kale waxaa loo yaqaanaa siin verplicht waa khasab rijrichting jihada oo ku siina inaad raacto weeyaan je moet het bord aan de aangegeven zijde hier dus in van beide zijden mid ka mid ah labada dhinac inaad qaadato unbaa lagu talinaya labada dhinac waad ku wadi kartaa weeye midka xiga waxaa la yidhahdaa verplicht rijrichting waa jiha khasab inaad raacto je moet in de rijrichting van de pijl treden jihada ay ku jeedisay falaartu pijl waa falaar inaad ku wada kaliya oo tooska ah inaad qaadato waay waa laga hor iman karaa dhanka midig waa lagaaga iman karaa dhanka bidix waa lagaaga iman karaa laakiin adiga waxaa ku khasban tahay kaliya tooska insha Allah midda xiga waa falaar ku jeedinaysa dhanka midig verplicht rijrichting waxaa qasab ah inaad dhanka midig u laabato kaliya dhanka bidix uma laaban kartid toos ma aadi kartid dhan walbana waa lagaaga iman karaa laakiin midka afargeeska ahaa dhanka kuu jeediye ma lagaaga iman karo kana waxaa la yidhi verplicht rijrichting waa wado khasab ah oo inaad jihada ku jeedisa raacto waay je moet in de rijrichting waxaa ku khasban tahay jihada van de pijl treden oo ay ku siisay falaartu je mag hier alleen waxaa lagu geeyaa halkaani kaliya rechtdoor toos of rechtsaf ama midig inaad u laabato kaliya rechtdoor waa tooski rechtsafna midig kaliya dhanka bidix ma aadi kartid waa lagaaga iman karaa dhanka toos midig waa lagaaga iman karaa dhanka bidixna waa lagaaga iman karaa
تاوي إن شاء الله كان كله وحال يرسنا وقصب وحاكو غصبان تاي ميد كميد إن قادت أو ميدك أم بدحة هوري ولا جاي من كرا دنك بدح ولا جاي من كرا دنك بدين ولا جاي من كرا دو إلى إدمو يموت in the richten van the pile triden وحا قصب قطها إن فلارت جهد كوجس الخالطو يمخ هي روح على أقولي هالكان اللين لينكس كلي بدح أو فريخس أف إن طول أو دنك بدح يمدك تكليه waxaan gelin insha Allah qaybta shanaad oo ah verkeersborden met betrekking tot parkeren en stilstaan waxaa lagu angaleynaa boorar ku saabsan istaagid ama parking dhigasho inaad halka parking dhigato ama aad istaagto kaliya ku saabsan boorkani waxaa loo yaqaanaa parkeerverbod waxaa mamnuuca halka inaad gaari dhigato yani waa wareeg blug leh haddana hal straight leh waa mamnuuc halka inaad baabuur dhigato laakiin waxaa lagu ogol yahay inaad istaagto stilstana waxaa loo yaqaanaa waxay tahay inaad qof dhigayso ama qof aad ka qaadayso ama inaad alaab dhigayso alaab aad ka qaadayso intii waxaa dheer oo telefooni aad ku hadlayso ama waxaas waa parking marka in parking dhigato halkan waa la diiday midka xiga waxa idana mamnuuc ah still system hatta inaad istaagto oo ah inaad alaab dhigto alaab ka qaado qof ka qaado waa lagu diiday iska daayeen inta la gaarin ba parking waxa lagu diiday bo inaad istaagto asiga laakiin waa laba straight oo xaq ayaa lagu saaray kii hore kiis kala waa halkan waxaa la yiri verboden broom fits and plaatsen yani halkan waxaa mamnuuc ah baaskiiladu iyo mootada dhexdeed oo dhexe in la dhigto la dhigaba ayaa mamnuuc ka ah ima khayr iyo broom fits ama fitska neersatan halkan laguma ogola inaad baaskiilkaada mise mootada dhexe aad dhigato halkan waxaa la yiri waa pay kaliya waa parkeerplaatsen waa meel parking ama loo yaqaan parkeer gelegenheid waa fursad parking aad dhigan karto halkan waxaa la yiri waa taxi standplaats waa meelaha taksiyada istaagaan meel walba parking la ogol yahay oo ama parking ay tahay aan lagu ogoleen inaad istaagto stilstan ku samayso waa lagu ogol yahay midka xiga waxaa loo yaqaanaa invalide parkeerplaatsen waa dadka handicapka ah oo baabuurta wata meesha gaariga loo ogolaya inay dhigtaan waayo adiga laakiin laguma ogola inaad parking dhigato laakiin waxaa lagu ogolaya inaad istaagto oo aad dad dhigto waa lagu ogolaya taayadina midda xigta ladder and lawson waxaa boorkan la ogolaya inaad alaab rarto alaabna aad ka dejiso laadan waa raritaankii lawson waa dejitaan inaad alaab aad ka dejiso laakiin adiga dad istaagayso oo qof saaxiibka ama familkaada dhigayso waa lagu ogolaya ama qof aad ka qaadayso waa lagu ogolaya ama alaab aad dhigayso midka xiga waa parkeerplaatsen waa meel parking la dhigto oo loogu talagalay kaliya qaybta loogu talagalay oo ah baabuurta kaliya markaan waa bepaalde category qaybo qaar ayaa loogu talagalay hier mag alleen geparkeerd worden halkan waxaa loogu kaliya door voertuigen baabuurta die aangegeven zijn oo boorka lagugu sheegay kaliya in dit geval alleen auto's baabuurta kaliya waxaa la yiri halkan waa parkeerplaatsen for een bepaalde category halkan waxaa loo ogol yahay waa meel parking la dhigto oo loogu talagalay qayb ama baabuur nooc kaliya oo ah hadatan waa baabuurta waaweyn iyo basaska kaliya hadda xaaladan waxaa leeyahay faraqta waakhens iyo bussen iyo basaska kaliya ayaa dhigan karo midkanna waxaa la yiri parkeerplaatsen waa meel parking dhigan karto iyo makhiya alleen gedeeltelijk op het stoep parkeren halkan waxaa lagu ogol yahay inaad stoopka mise marshabeedka meesha ah inaad lugtaada saarato qayb kale dhulka aad dhigato laamiga ayaa lagu ogol yahay waxaa la yiri halkan parkeerplaatsen waa meel parking la dhigto for vergunning houders oo loogu talagalo dadka oo wata sharciga u wata
sharci waxa weeyaan dadaad jiro oo meeshaas mataqaanaa khamiitiyada qaarkooda waxaa jirto inaad meesha ama centrumka ama magaalada kaleeta parking macnaha lama dhigan karo dadka degan mise dadka mataqaana sanadkii lacagta laga qaado ayaa dhigan karo taargadooda ku jirta register waagi hore waxay ahayd warqad ayaa lagu siin jiray oo gaari horta macnaha aad dhigan kartay laakiin hadda waxaa laga dhigay in taargada ku jirta register kaliya aanan lagu siinin warqad oo hadduu qofka wax ganaaxayo uu taargada eegaya kaliya mashiin buu wataa marka hadduu arko inaad aad tahay qof lacag bixiyay sanadka kuma ganaaxa haddaad arkin ahayn ganaaxa kuu samalo 100 euro hiir maqii alleen bakiiran halkan waxaa dhigan karo kaliya qofkii haysto firqooyin sharci haysto halkan waxaa leeyahay parkir placen waa meel parking la dhigto for people type muddo cayman kaliya oo ah kaar loo yaqaano parkir schijf inaa wadato waay oo lagu iibiyo actionka iyo albertineka iyo meelo qaar lagu iibiyo oo ah saacadii aad soo gashay aad ku aadinaysaa waqtiga kadibna 2 saacadood ay lagu galayaa muddo ka badan laguma ogolo inaad dhigato waxaan loo yaqaanaa kaarkaasi parkir schijf waa la wada yaqaanaa 1 euro iyo sentiyaal unbuu joogaa halkaana waxaa yidhi begin zone verbod for vracht autos halkaana waa aaga la diiday inay baabuurta waaweyn aysan geli karin meeshan baabuurta waaweyn ma soo geli karaan waxaa la yidhi halkaana begin zone verbodet parkeren halkaana waxaa la yidhi waa bilowga aaga mamnuuca ah inaad dhigato parking inta u dhaxaysa subaxdii 2 saac ilaa iyo 12 saac galabtii 8 aroornimo ilaa 6 galabnimo yani zone waaye haddii marna zone lagugu qoray labada dhinacba lama dhigan karo haddana waxaa lagugu soo qoray saacadaas inta u dhaxayso lama dhigan karo gaari halkaa boorka xiga waxaa la yidhi halkaana waxaa yidhi begin zone parkir placen for vergunningshouders waxaa bilaabtay meesha parkinga loogu leeyahay in la dhigto mise aaga loogu talagalay cidda u haysato ogolaansho mise sharci u haysato bina dad khibeed aagani mise ay ridaan maqaleen parkir alashi vergunningshoud halkan waxaa dhigan kartaa kaliya haddaad sharci u haysato halkaana waxaa la yidhi begin voetgangers zone waxaa bilaabtay aaga cidda maxaa ku yirahdaa ii sheegay soconaysa kaliya inay socdaan bina dad khibeed maqaleen voetgangers komen aagan waxaa imaan kara kaliya ma ku socon karo kuwa soconaya halkaana waxaa la yidhi ainda waxaa dhammaaday parkir placen meesha parking la dhigan karay for people type macna saacadda cayman oo ahayd parkir schijf zone aaga kaarka buluuga aad wadato oo saacadaad ku aadin lahayd wuu kaa dhammaayay halkaana waxaa la leeyahay parkir placen waa meel parking la dhigto for openbare vervoer reizigers waxaa loo ogol yahay dadka ku safraayo gaadiidka oo la wada isticmaalo sida baska treemada diyaaradda dadka raacayo kale inay baabuurtooda inta dhigtaan ayaa loo ogol yahay ama lacag ha bixiyaan mise free ha ahaato waxaa laga soo gaabiyey waa pay plus r oo ah parkiren yani parkir placen for reizigers ama for vervoer reizigers halka kalete parkir placen for carpoolers halkan waxaa loo ogol yahay in ay dhigtaan baabuurta qolo loo yaqaano carpoolers carpool waxaa loo yaqaanaa group hal shaqo aadayo oo hal meel iskugu imaanayo hal gaari ka qaadanayo hal bas weyn ka qaadanayo oo qaabka waxaa sameeyo shirkadaha shaqada ama khamiitiyada haddii hal shaqo aad wada aadaysaan hal meel baa iskugu imaanaysaan oo baabuurtada aad dhigane baabuurkooda weyn mise bas weyn ayaa lagugu wadayaa waa qaab loogu talagalay in lagu dhaqaaleeyo baasiinka waxaan loo yaqaanaa carpoolers waxaan gelinaa insha allah qaybta 6aad waxaa la yidhi verkeersborden overige geboden en verboden waxaa la yidhi waa boorarka wadada overige geboden en verboden oo ah
waxyaabaha kale lagu amray oo furiqa waxyaabo kale weeyaan khibowdan lagu amray an firbowdan iyo laga mamnuucay waxaan leenahay marka in hal firbood boorka wuxuu sheegayaa in hal firbood inaad gaari garab marto dhaafto waa la diiday in hal firbood for motor voertuigen waxaa mamnuuca inay macnaa baabuurta ku shaqeysa matoorka isdhaafaan by four belt mathalan three autos laba baabuur oo kale laba mooto kale bas iyo baabuur oo kale bas iyo mooto kale isma dhaafi karaan baabuur iyo mooto kale isma dhaafi karaan yacni gaariga madow waa gaari caadi dhanka midigta haysta gaariga gaduudkana wuxuu rabaa inuu gaari madow dhaafo laakiin haddeertaan lama ogolo si hadduusan boorkan lahayn waa la ogolyahay marka waxaa la yidhi motor voertuigen waxaa loo yaqaanaa wixii ku shaqeeya matoor markii laga soo reebo brumfiska invalida voertuigen iyo tramka markii laga soo reebo waxyaabahaas oo dhan baabuurta yaryar mootada waaweyn cagacagafta baska waxaas oo dhan waxaa loo yaqaanaa motor voertuigen insha allah inta yar wuxuu noogu sharaxayaa motor voertuigen cidda ku shaqeysa matoorka waxaa loo yaqaanaa chimotiseerta voertuigen baabuurta mise gaadiidka la matoor gareeyay markii laga soo reebo brumfiska yacni brumfiska wuxuu leeyahay matoor invalida voertuigen baabuurta oo haynaya waxay leeyihiin matoor iyo waa tramka iyo tramka iyo gaariga loo yaqaano waa bromobilka snorfitka intaasoo dhan matoor way wada leeyihiin laakiin sida xeerka uu dhigay matoor ma laha leeyahay cidda matoor kale la sheegay waxaa loo yaqaanaa waxaa ku yidhahdaa baska baabuurka yar caadiga ah baabuurka weyn mootada weyn iyo cagacagafto kale iyo heftruck oo kaleete waxaa loo yaqaanaa motor voertuig marka waxaan leenahay ainda in hal firbood waa dhammaadka meesha mamnuuca laga mamnuuca inaad gaari dhaafto oo kii hore ahaa kan wuxuu ahaa inaad in hal kaas inta waa la diisameen hadda wuu kaa dhamaayo weya insha allah waa lagu ogolay inaad gaari dhaafto weeyaan halkaana waxaa la yidhi in hal firbood for fracht autos halkan mamnuuc waaye baabuurta waaweyn inay dhaafaan baabuur yaryar inay dhaafaan bas laakiin bas inuu ku dhaafo waa la ogol yahay fracht autos mogen hier niet inhalen baabuurta waaweyn inay baabuurta kaleete dhaafaan lama ogolo halkaana wuu ka dhamaayay ayna in hal firbood weeyaan waxaa ku xiga foran verlenen si mudnaanta waa boorkan guduud ku wareegsan falaart guduudee waa adiga falaart madowna qof ka hor imaanaya waa foran verlenen si mudnaanta jij moet het tegemoet komende verkeer vol laten gaan waa inaad iska hor macna maridaa wax walbo ka hor imaanayo qolo soconaysa qolo baaskiil wadaysa qolo baabuur wadaysa dhan oo ka hor imaanayo way ka wada leeyihiin cidda ka hor imaanaysa marka boorkan baa la siiyaa ayagana oo ah bilawga cadka ku sawiran iyo guduudka foran verlenen kan waa mudnaanta si het tegemoet komende verkeer ciddii ka hor imaanaysa lagu leeyahay moet je foran verlenen ama waa darawaliinta ka hor imaanaya waa inay siiyaan ciddii dhankan ka tegaysa adiga ayaa kale mudnaanta waa flartada waa cad insha allah boorkan wuxuu leeyahay keer firbood waxaa mamnuuca halkan inaad kusoo kala firayso yimaq hirnid omkeeran halkan inaad kusoo laabato ama jiirayso lama ogola boorka xiga waxaa la yidhi ayna firbood waxaa kaa dhammaaday ala voorgaande firboodan khildanid miir wax walboo lagugu soo mataqaanaa amray mise lagaa soo mamnuucay hadda waa kaa dhamaa wixii ahaadaanbo ama xawaare ha ahaadaan ama jid yaroo lagu dhahay adama waa lagaa leeyahay ha ahaado waxaasoo dhan waa kaa dhamaaday waay waa boor caddaan ah oo saddex strib lagu saaray wax walboo hore lagugu soo amray lagaa soo diiday lagaa soo mamnuucay way kaa dhamaadeen waaye boorkana waxaa la yidhi ayna firbood waa dhammaadka ala voorgaande firboodan wax walboo lagaa soo mamnuucay mise lagugu soo amro ahaa xawaare ah oo kuu sheegay boorka korontada
وكي كودي سؤال كان كان لا حوارها كيسي دمات كاها ورما ذويان بوركان وحكا الله ياسينه ستوب يموت ستوبين بوركان ضد أياك عندك هايو أما وترافيك مسافر كيركي هجان أتوكوت هايو استاج واي يموت ستوبين وحقص وين استاجت إن شاء الله وحنقلنا مركا كي تضوات مثل قيبتي تضوات فركيريس بورين وحيررك وضد مد بتركين تود فركيريس ريقولس خسيا إن حيررك إن محكورها lahaanshaha ama farkiirisa ma qaanuunka quseeya wadada qaanuunka wadada quseeya waa calaamadaha jidka ee ku saabsan xeerarka gaadiidka waxaan leenahay halkan auto snelweg waa highwayga bixin auto snelweg waa bilowga highwayga loogu talagalay in lagu wado 130 saacadii haddana uu ka dhamaayo waa ayda auto snelweg waxaa ku xiga haddana autoweg waa wadada autoweg loo yaqaan loogu talagalay in lagu socdo 100 kilomitir saacadii haddana waa ayna uu ka dhamaado weeyaan waxaa ku xiga haddana meel loo yaqaan erf oo ah meel la degan yahay caruur ku ciyaarayso bixin von erf waa meesha la degan yahay loogu talagalay in lagu socdo 15 saacadii amaba loo yaqaan ba stop fus tilaawada ana aadamaha qaado midda xiga ayda erf waa dhamaadka erfka waa dhamaadka erfka meesha 15 mitir lagu weeyna ku socoto way ka dhamaatay waxa la yiri halkan ay footpath waa meesha dadka lugeynaya ay ku soconayeen kaliya haddana way ka dhamaatay waa ayda dad footpathka halkan waxa la yiri rider path waa wadada farasta kaliya ay ku socoto baabuur iyo mooto ma gali karo haddana waxa la leeyahay ayda rider path wadada farasta uu dhamaaday mise fardaha halkan waxa la yiri waa boor wareega buluga baaskiil ku sawiran verplicht fietspad waa wada khasab ee baaskiilka inuu isticmaalo maro halkan waxa la yiri way ka dhamaatay wadada khasabkeed waxaadan la yiri verplicht brom waa khasab wada oo isticmaalaysa mootada dhexe iyo baaskiilkaba labadaba way ku khasban yihiin waa boor buluga wareega haddana waxa la yiri wuu dhamaaday waa ayna verplicht brom and fietspad haddana waxa la yiri kan xiga on verplicht fietspad waa wadaan khasab ahayn oo baaskiilka ay ku wadaan waa loo ogol yahay laakiin hofnit way haddana wuu dhamaaday waxaan galaynaa midii sideedaad insha Allah qaybtii sideedaad firkirisborden mid betrekin tot bibawdcom xeerarka wadada oo khuseeya mise boorarka wadada khuseeya meelaha dhisan magaalada dhisan waa bibawdcom loo yaqaanaa Helmond waa magaalo dhisan aad galaysaa waay magaalo dhisan macnaheedu wax weeyaan waxa mataqaanaa ku soconaysa konton waay mid kale basaska hadii xaaltaha ka dhaqaajinayaan ee ka hor imaanayaan amsa ay ka dambeysaba way ka leeyihiin yarayd binada bawdcom waxa ku wada magaalada gudaheeda style waa tuulo idana meel loo yaqaano waa idana magaalada gudaheeda sidoo kale snake snits waa idana tuulo kale waa idana magaalada gudaheeda maxaa ku saaray waa ayda bawdcom magaalada banaankeeda Helmond way ka dhamaatay waxay ka dhigan tahay idana konton ka badan baad ku socon kartaa waa imisa 80 hadana boorka lagu siinin sidoo kale magaalada banaankeeda haduu basaska xaaltaha ka dhaqaajinayo uu ku dhaho waa dhaqaajinaya kama lahan adiga kale magaalada gudaheeda uu ka lahaa hadan adiga kale kama laha waxaan galeynaa marka insha Allah qaybtii sagaalaad dad khaldaneen waxaan leenahay verkeersborden waa boorarka wadada waris qoysborden oo ka hadlay digniinaha waa digniinta ay ka hadlayaan waxaan leenahay pass of iska jira loo yaqaanaa boorarkan waa digniinba ku sheegaya flaarta ee aanahay boorka sambuuska usbaysan flaarta kord fiirinaysa waa iska jir slecht wegdeg wada si xun oo u samaysan iska jir wadadu way sun tahay way si xun bay macnaa u dhisan tahay Soomaaliga wuu khaldan yahay laakiin waxa la wada si xun u dhisan weeyaan haddana waxa la yiri kan xiga pass of iska jir bocht na rechts
waa goolad u laabanayso dhanka midig weeyaan iska ilaali haddana mida kale iska jir bokt naar links goolad aadaysa dhanka bidix weeyaan haddana waxaan leenahay pass of iska jir haarspel bokten bokti loo yaqaano haarspel weeyaan the eerste is naar rechts boktigan ugu horeyn dhanka midig bay aadaysaa iska ilaali weeye waxaan loo yaqaanaa haarspel bokten boktooyinka isku laalaabmo waay ama gooladaha isku laalaabmo jiiradaha isku laalaabmo kana wuxuu leeyahay iska jir waa bokti xun oo u laabanaysa ugu horeyn dhanka bidix haddana waxaa la yidhi kan xiga pass of iska jir styla haylin styla haylin waxa weeyaan waa meel taag aad korayso ama buur aad korayso iska jir waa buurad koraysa weeyaan midda xiga iska jir waa idin pass of khifaarlik dalin waa degaandeg mise taraarax khatar ah oo hoos u dhadhacaya iska ilaali weeyaan waxaa kaloo la yidhi pass of iska jir waxaa la yidhi khifaarlik crispont waa boorka iska jir lagu leeyahay oo xad ah wuxuu ku leeyahay isgoos halis ay weeyaan boorkan dadka wax isku qodanayo boorka kaleeto ka hadlaya foreign crispont isgooska mudnaantakiisii ah iyo kan bay isku qaldayaan dadka qaar laakiin kan waa khifaarlik kaasna waa crispont kan xiga waxaa la yidhi pass of iska jir rotondo iska jir dabaarad ayaa kusoo dhow runabout kan xiga waxaa la yidhi iska jir sporweg overgang waa wada tariin maraayo met sporbomen oo leh odahii mise birihiis xiraaya yacni waddada waxaad ku garan kartaa waa wada tariin mara kow haddana dee marka tariinka soo mari rabana bir bay leedahay isxiraysa kan sida ayaa lagu gartaa sawirkan midda xiga waa isna waa midda tariin maraayo laakiin birihiis xiraya ma laha weeyaan iska ilaali pass of iska jir sporweg overgang zonder sporbomen aanan lahayn birihii isxiraya midda xiga oo halka xacda ah asna waa iska jir waa meel tariin soo marayo oo aanan oo leh keliya hal waddo tariin marayso kan xigana waxaa la yidhi sporweg overgang waa laba xac ayuu leeyahay laba spor mise laba waddo uu leeyahay oo tariinka marta iyo ka badan midda xigaasna waxaa la yidhi pass of iska jir waa trump meeshan waxaa mari karo trump mise soo goyn karaba iska ilaali weeyaan waxaa la yidhi haddana halkan pass of iska jir waa beweeg baara brook waa buunto dhaqaaqi karta waa buddooyinka hoos biyaha u mara oo furmaysa markii uu marayo markabka mise doonta ayaa lagu leeyahay iska jir beweeg baara brook haddana waxaa la yidhi pass of iska jir weg werkzaamheden shaqo ayaa laga hayaa waddada mise werk in uitvoering weeyaan kan xiga waxaa la yidhi marka pass of iska jir rayban versmalin waddada waa lasoo yareeyey waddada baabuurta lagu wado oo loo yaqaano rayban versmalin waa lasoo yareynayaa haddana waa mid lamid ah pass of iska jir rayban versmalin rechts wadda lasoo yareynaya waaye laakiin dhanka midig baa laga soo yareeyey haddana waxaa la yidhi iska jir pass of rayban versmalin links wadda lasoo yareeyey dhanka bidix laga soo yareeyey weeyaan weli waxaan ku jirnaa waa borarkii iska jirta ahaa mise loo yaqaano waris qoys boren mise waa digniintii haddana waxaa la yidhi iska jir pass of slip khibaar iska jir waddadan waad taraarixi kartaa waad ku taraarixi kartaa iska ilaali waa halis inaad taraaraxdo kan xiga waxaa la yidhi pass of kindern iska jir caruurta haddana waxaa la yidhi kan ku xiga midka canuga yari qofka weyn aad arkayso waa ilmo ayuu ka hadlayaa midka xiga pass of iska jir zebra part meel dadkay maraan oo loo yaqaano zebra part ama food hungers overstake plus loo yaqaan weeyaan iska ilaali haddana midka xiga wuxuu kaaga digayaa food hunger dadku soconaya kaliya iska ilaali weeyaan waxaan leenahay haddana kan ku xiga pass of iska ilaalay broom mootada dhexe iyo baskiiladaba
midda kale pass of iska jir weeyaan los ligendastein dhagaxaan kharuuraca dhulka yaala aanan meel haysan iska jir weeyaan haddana waxaa la yidhi pass of iska jir waa kaada waa meel lag ah biimareen ah ama rivier mise wabiya hoos maraya midda xiga waxaa la yidhi pass of iska jir khroot wild xayawaanada duurka jooga midda xigtana waxaa la yidhi pass of iska jir vey waa xoolaha la dhaqda midda kale waxaa la yidhi pass of iska jir taykhaliqas qolada ka hor imaanaysa iska ilaali waa laga hor imaan kara meeshan kan kaleeto waxaa la yidhi pass of iska jir asne laaq filikhende filiktayken diyaarada hoos u duulaaya waa sida markaad maraysa agtiisa elboorada kale kan xiga waxaa la yidhi pass of iska ilaali zywind waa dabeel dhinac kaaga imaanayso kan kaleeto waxaa la yidhi iska jir firkiris liqten nalka loo yaqaano ismaa faraha mise stop liqtiga kan kale waxaa la yidhi pass of file iska ilaali waa zaxma mise jam mise filo sidii loo yaqaanabo drug kan kaleeto waxaa la yidhi pass of iska jir onkhifald shil kan kaleete waxaa la yidhi hadduu ilaahay idmo pass of iska jir slechte zicht dooreyken waxaad iska jirtaa la yidhi aragti xun oo sababayso roob snew baraf ama mist ama ceeri amaba kan ku xigana waxaa la yidhi iska jir isol barafka dhega dhulka ku dhega of amaba barafka mataqaanaa kor ka yimaada snewga loo yaqaan waxaa la yidhi haddana pass of iska jir khivaar waa halis iska jir fanweelka khivaar halistay tahayba start of it underboard ama boorka hoos yaal yacni boorkan calaama cajiibta wuxuu leeyahay iska jir laakiin waxaa lagu leeyahay iska jir boor kaloo loo yaqaano underboard oo hoos lagugu samayn doono ayaa kuu sheegaya waxaan gelaynaa insha allah qaybtii 10aad oo loo yaqaano bivekh wayzarin oo ah waa jid hage tilmaam hage tilmaamaha mise tilmaamta mise waddada hage waxaa la yidhi kan waa bivekh wayzarin waa jid hage keliya jid tilmaame ama hage waxaa la leeyahay harlem 23 kilomitr bay ku jirtaa amsterdam 34 kilomitr bay ku jirtaa waxaadna qaadan kartaa waddada loo yaqaano a44 ayaa loo yaqaanaa kan kaletana waa la mid wuxuu leeyahay sana jid tilmaame arnhem iyo abildorn dhankan ay ka jirtaa midka xiga asna waa jid tilmaame mise hagabe halkan haddaad u degato meel maqaayad ah mise baarkina baasiin aad ka shubato ayaa ka heli kartaa kan ku xiga asna waa tilmaame wuxuu ka hadlayaa ii sheegay hadduu ilaahay idmo jid tilmaame wuxuu ku leeyahay halkan waxaa kaa jirta magaala hebla rotterdam dhankan waxaa kaa jirta dordrecht iyo utrecht iyo breda waxaa kaloo jirta waa inaan sheego boorarka ama calaamada oo guduuda ah oo ka hadlayso highwayga waa highwayga oo Holland kaliya waa guduud wuxuuna ka bilaabanayaa a wadooyinka highwayga oo 130 lagu socdo waa guduud calaamad guduudan weeyaan ana weeyaan marka kuwaas waxaa loo yaqaanaa autosnel loo yaqaan wadooyinka 180 waxay leeyihiin lambar jaale ah oo loo yaqaano calaamad jaale ah mise kalar jaale oo loo yaqaano n wadooyinka Yurubna waa kalar wuxuu leeyahay oo cagaar ah waxaana mataqaanaa loo yaqaanaa e ama ebo oo cagaar ah waxaana laga soo gaabiyaa waa Europese hoofdroutes waa wadooyinka Yurub ama waa Europese bay insha Allah waxaa la yidhi bivekh wayzarin waa tilmaam jid tilmaame ama hage ku leeyahay Montfort iyo Woerden halkaa bay ka jirtaa haddana waxaa la yidhi jid tilmaame oo loogu talagalay baskiiladu kan kaleete waa jid tilmaame loogu talagalay baskiilada iyo mootooyinka loo yaqaano waa bromfits insha Allah kan xiga waxaa la yidhi waa jid tilmaame oo haddana ku jiro maxaa ku yidhahdaa ii sheegee omliden waxaa halkaa laga soo xiray waddo loo yaqaan Woerden waddo loo yaqaano Woerden
ama magaalo loo yaqaano Woerden laakiin waxaa halkan baad ka aadi kartaa hoose ayaa lagu leeyahay waxay ka jirtaa Woerden dhinacaas hore waa lagaa soo xiray dhinaca midig ka aad weeyaan kan kaletana wuxuu sheegayaa isna waa Beweegwijzeren waa jir tilmaamo kaliya oo ku yaala magaalada gudaheeda ku dhahayo centrum halkaas ayuu ku yaalaa intana isbitaalkii intana waxaas oo kaleeta midda xiga waa Beweegwijzeren waa tilmaame sidoo kaleasna oo ku tilmaamayo wadada ku dhahayo haddaad dhanka midig qaadato waxaad aadaysaa highwayga A12 oo aadaya Utrecht haddaad toos aadane waxaad qaadanaysaa Den Haag oo ku geyn karta A12 iyo Woerden oo asna ah N212 insha Allah kan hoosana waxaa la yidhi Wijk Eindhoven wuxuu ku sheegayaa magaalada xaafadaha waa Boomwijk Vogelwijk Plantenwijk iyo Molenwijk insha Allah kan xiga waxaa la yidhi asna waa Wijk magaalada ayuu ku sheegayaa laakiin markaan magac ma ahan waa nambaro xaafad hebel lambar hebel waaye 10 12 14 25 midka xiga asna waxaa la yidhi waa Beweegwijzeren tilmaam ayuu ka hadlayaa wuxuuna ka hadlayaa waxay tahay vracht autos baabuurta waaweyn iyo baabuurta yaryarba oo wada waxyaabaha halista meeshii hore waa lasoo diiday waxay ahayd gaari gaduud ah oo wax gaduud ay ku dhex jiro ayaa laga diiday laakiin halkan waxaa qasab ku tahay inay inta qaadato wuxuu ku sii geenayaa wado kaleeto oo aad mari karto insha Allah waxaa gelinaa insha Allah qaybtii 11aad oo ka hadlayso information akhbaar mise war ku siinayso warka ku siinaya waxa weeyaan hogta onderdoorqaan yacni jooga intaan aad ku dhex mari karto waa imisa waa 4 mitir labo by voorbeeld de brug waar je onder rijdt is 4,2 meter buundadaad ku hoos wadi doonto waa 4 mitir iyo labo iska ilaali la soco kana wuxuu dhahayaa zebra part waa wado oo zebra ah kaliya meesha laamiga laga talaabo oo dadka ay lugeynayaan soconaya mari karaan kan kalena wuxuu leeyahay bus ama waa tram halt meesha baska istaago mise tramka istaaga kaliya kan kalena wuxuu ka hadlayaa for sortering wadaad isku toosinayso oo haddaad rabto inaad bidix u laabato aad u laaban karto toos aad aadi karto midigna aad aadi karto insha Allah kan xigana wuxuu leeyahay einer linker right stroke waxaa dhamaanayo wadada bidix ka imaanayso way ka dhamaanaysaa weeyaan kuwa toos aadayo waa diyaar laakiin mid bidix ka imaanayso way dhamaatay kan kaleete wuxuu leeyahay xiga splitting waa kala qaybka mise kala baxa highwayga halka uu jidka ku kala baxo mise ku kala leexdo kana wuxuu leeyahay antal doorgaan right stroke wada dhowr right stroke ah yani halka falaar kasto waxa weeyaan right stroke bawrkoodo kana right stroke gabi ahaan waxaa la isku dhahaa marka right baan marka dhowr right stroke oo toos u socda weeyaan kan kale waxaa la yiri door Lobendweg wada mataqaanaa oo toos dood Lobendweg wada soo dhimanaysa weey waad gali kartaa adiga laakiin afka hore markaad si gaarto ma ka bixi kartid way ka soo dhimanayaan mid kale tan waxaa la yiri waa dood Lobendweg the eerste weg rechts loop dood wadada ugu soo hore oo dhanka bidix midig u laabanaysa way dhimanayaan waad gali kartaa laakiin ma ka soo laaban kartid macnaha waxa weeyaan ma ka sii bixi kartid laakiin inaad soo laabato weeyaan kan xiga waxaa la yiri verboden intreden waxa mamnuuca inaad wadadan gasho oo galo baabuurta waaweyn loo yaqaan vrachtwagens dhanka midig inay galaan mamnuuc weeyaan kan xiga waxaa la yiri verkeersborden ama verkeersbord boorkan het verkeersbord geld boorka wuxuu khuseeyaa kaliya alleen voor de aangegeven rijstrook rijstrook lagu siiyo kaliya oo ah midkan bidixda jira haddii uu baabuur ka balaaran yahay 2 mitir ma gali karo kuwan kaleete laakiin wuu gali kariyaa weeyaan kana waa asna lamid haddii aad 2 mitir ka balaaran tahay rijstroogan ma gali kartid weeyaan waxaan galaynaa insha Allah qaybtii 12aad haddaan qaldaneen verkeersborden waa boorarka wadada rijstrook signaleringsbord waa boorarka khuseeya waa rijstroogyada oo haddana
ku shaqeeya korontada يعني boorka 70 ku qoran waa maximum speed waa xawaara ugu badan oo ku sheegay boorka ku shaqeeya korontada hadduu ka dhamaadayna waa kan ayna fairboard waa mamnuuci lagu saaray uu ka dhamaaday boorka kaleete oo falaarta khalooca ah ay ku qoran tahay waxaa la yidhi right stroke verlaten ka bax right strokean yimid days right stroke verlaten waa inaad ka baxda weeyaan waayo hadhowdii wuu xirmi doonaa waxaad heli doontaa xadan guduudan oo ah khislowten right stroke wadadan way ka xiran tahay iska ilaali haddana waxaa la yidhi right stroke waxaa loo yaqaanaa open right stroke uu ku furan yahay waad ku wadi kartaa update right stroke makhreyda oo dhan right strokean waa lagu wadi karaa kan kaleetana waxaa la yidhi busban wadada baska kaliya halkan bas baa ku wadi karaa boorkan wuxuu leeyahay verkeeris borden waa xeerarka ama boorarka wadada the first undividing oo tilmaamo kala duwan ku siinaya waxaan leenahay marka board schild dit board waar is goed for een bocht in dit geval naar links boorkan wuxuu kaaga digayaa goolad galaysa dhanka bidix oo xaalkan ah ee inay u laabanayso bidixda boorkan wuxuu kaaga dilayaa schik heken hekyo oo schik loo yaqaano weeye deze borden boorarkani waar is quwiye waxay kaaga digayaan for an tay splitting yani waxa loo yaqaano tay splitting boorkani waxa uu kaga digaya isgoys tooska ee kasoo xidhmaya ee midigta iyo bidixda kaliya u leexanaya kan xigana waxaa la yidhi court info stroke boorkan wuxuu kaga digaya iska ilaali waa meel gaaban oo inaad ku gashay tahay wadada dit board waar is goed for in court info stroke wuxuu kaga digayaa wadadan masjidkan meel yaro aad ku gali karto inay tahay kana waxaa la yidhi insha allah ayna flux stroke wadada highwayga markaad saarantahay oo gaari ka halaawad istaagi lahayd ama hadduu dhib ku haysta istaagi lahayd inay kaa dhammaanayso mise soo yaraanaysa ayuu ka hadlayaa ayna flux stroke dit board waar is goed forehead ayna van flux stroke boorka wuxuu kaaga digayaa cadka iyo madowga ah in wadada yaraanayso mise kaa dhammaanayso kanna waxaa la yidhi insha allah verkeeris berkhadiir waa qof loo yaqaano verkeeris berkhadiir oo bini aadin ah hadduu boorkan ku taago waa inay istaagtaa weeyaan yani obdit zebrabad wadada dadka maraayo kunye verkeeris berkhadiir waxaad ka fili kartaa verkeeris berkhadiir qof loo yaqaano hun aanwisen tilmaamtooda muji opfolken tilmaamtooda waa inaa dhacdaa weeye waxaa la yidhi macnaa bibakening waa bibakening wax loo yaqaano boorkan waxaa loo yaqaanaa bibakening dayse three borden boorarkani saddexda ah telen af dood in het khivaw waxay macnaa ku xisaabinayaan inta kaga dhiman meesha tarinka isboorweg overqan meesha tarinka gooya ama soo mara ayay kaga hadlayaan het board met three strepen boorka hore oo saddex strip leh oo guduudan wuxuu ka hadlayaa 240 meter 240 meter ayaa kaaga dhiman kan kaleete labadii strip mise labada xariiq jinleene wuxuu ka hadlayaa 160 yani halkii strip waa 60 waa 80 boorka asna halkii strip lehna waa 80 waa kaasa markii waxaan leenahay halkaa baan ku joojinaynaa waxaan leenahay insha allah waxaan noo dhiman on the reportanka insha allah ka xumahay boorarka hoose waxaa loo yaqaanaa verkeeris borden onder borden boorarka wadada oo kuwa hoose mataqaanaa la jiro yani boorarka hoose waxay ka hadlayaan waxay wax ka bedelayaan boorarka kore kaliya boorarka hoose oo dhan waxay wax ka bedelayiin boorarka kore oo kaliya oo ah waxaa la yiri matalan ka soo qabo boor waxaa haystay riqtiinsweeq oo kale oo lagu dhahay lagama hor imaan karo laakiin waxaa lagu saaray sawir ah iyo qoraal ah baaskiil lagu leeyahay outxonter waxaa laga soo reebay baaskiilka yani baaskiil wuu ka hor imaan karayaa weeyaan insha allah
hadduu ilaahay idmo marka waxaan rajeynayaa intaa ku ekeeyo boorarka underboardka inaa halahan aan ku ekeeno aan tahay underboardka ayagana ugu dambeeya insha allah waxaan rajeynayaa in laga faa'iido ama in la fahmay oona laga faa'iidi doono waxaan leenahay kusoo dhawaad janaalkeena cusub insha allah tacaala waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illa ant astaghfiruka waatuubu ilayk